بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال تعالى أيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. haddaba walaalayaal, waxaan rabnaa maanta inaan ka hadalno insha allah hadduu rabbi noo qadaro mowduuc ku saabsan uhiilinta nabigeena Muxamed sallallahu calayhi wasalam. walaalayaal, waxaan ognahay nabi Muxamed sallallahu calayhi wasalam inuu yahay khayru khalqillaah, inuu yahay khayrul bashar, inuu yahay midkii ilaahi subxaanahu wa tacaala uu ka doortay min fowqi 7 samaawaat, uu usoo dhiibay risaalada, uuna ku karaameeyey ummadan ilaahay ku sharifay. waxaa badatay zamankan oo aad usoo badatay in maalin walba ay gaalada iyo dadka gaala raacyadaba ay colaad iyo dhibaato nabigeena sallallahu calayhi wasalam cirdigiisa iyo sharafkiisa ay ku hayaan. sidii markii uu noolaaba colaada iyo dhibaatada ay ula qabeen oo ay ula dagaalamayeen, ayay hadda markii uu nabi Muxamed dhintay sallallahu calayhi wasalamna cirdigiisii iyo sharafkiisii iyo karaamadiisii ay maalin walba meel looga dhacaya. war maxaana la gudboon dad yaho muslimiinta ah? maxaana la gudboon inaan samayno? waxaana la gudboon nabi Muxamed sallallahu calayhi wasalam iyo diintan inaan siday ugu dhinteen dadkii saxaabada ahaa, dadkii ahlu maaragtay wanaagsana inaan ugu dhimano. sababta oo ah islaamka wuxuu ilaaliyay 5 shay. waxaa ugu horeeya addiin, almaal, annafs, alcird, annasab. diinta ilaalinteeda waase diinta ilaalinteeda waa kitaabka la ilaaliyo allah subxaanahu wa tacaala, nabigeena Muxamed sallallahu calayhi wasalam. war marka aad u qiiroon weyso diintaadii oo kitaabkaadii aad u qiiroon weyso, maalin walba gaal intuu kitaabka soo qaado jeejeexay uu horteena ku gubaayo, uu nabigeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam maalin kasta kartoonis laga samaynayo oo la aflagaadaynayo, war maxaa inoo haray inaanu maaragtay aan difaacno? war maxaa dhow waxaan u qiiroon doonaa nafsadeena, mase waxaan u qiiroon doonaa cirdigeena, mase nasabkeena iyo awlaadeena aan u maaragtay qiiroon doonaa? asoo allah subxaanahu wa tacaala uu naleeyahay annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim. nabiga ayaa uga owleysan mu'miniinta naftooda. war naftaada iyo maalkaada iyo awlaadaada iyo ehelkaadaba waxaa ka horeeya nabi Muxamed sallallahu calayhi wasalam. markaad nabiga difaaci weyseen oo annaga la isku keendiray oo gaaladiina kala jajabisay oo qabiilna loo kala qaybiyey oo qoloqolona loo kala qaybiyey oo kooxna loo kala qaybiyey, waxay doonaan ayay samaysteen, waxay rabaan ayay ku dhaqaaqeen. sababtoo ah waxay ogaadeen meel ayay nagu hubsadeen. war maxaad u kici la-dihiin dad yahow muslimiinta ah? qof walba calaa daaqadiisii iyo awoodiisii iyo intii uu sheegay munkarka uu hor istaagi kara muxuu u hor istaagi waa? waatuu xadiis nabigeena lahaa sallallahu calayhi wasalam: man ra'aa minkum munkaran falyughayir biyadihi, fain lam yastadic fabilisaanihi, fain lam yastadic fabiqalbihi, wadalika adcafu liimaan. waa marka laga aamusan yahay oo aanan laga hadlaynin ama in yar ay ka hadlayso, maxaa xagee iimaankeeni aadaya? yaase inuu ilaaliyo diintan iyo sharafka nabi Muxamed sallallahu calayhi wasalam iyo kitaabkeena iyo karaamada muslimiinta yaa looga baahan yahay? micid gaar u xil saaran ayaa jirto. war maxaa ku dhacay markii shakhsi ama qof wax la yeelo? waata loo banaan baxo, waata loo mudaaharaado, waata loo maaragta dagaalamo. maxaa loogu dagaalami waaye? maxaa loogu banaan bixi waaye? maxaa loogu mudaaharaadi waaye? nabi Muxamed sallallahu calayhi wasalam aflagaadadiisa maalin walba ay soo noqnoqonayso oo aanan sanad ahayn, oonan kow ahayn, oonan laba ahayn, maalin walba qofkii iska soo neefsadaba uu maaragtay uu ii sheegay isaga dhawaaqaan. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu la leeyahay aayadihiisa qur-aanka: kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar. waxaad ahaateen ummatul Muxamed sallallahu calayhi wasalam khayra ummadihii kuwa khayr badan. limaada? ta'muruuna bilmacruuf, wanaag ayaad fartaan, wa tanhawna cani ilmunkar, xumaantaad reebtaan. war marka aan xumaantii wayba soo dhaaftay dulmi iyo dagaal nabiga lagu hayo duulaan aan ka hadli weyno, khayriyadii xageen ka helaynaa? fayn khayriyadii xagee martay?
aawa khayriyadii ummadan xageen ka helaynaa walaalayaal fadhiga ka kaca gaalada maalin walba waxbay isku soo daydaa in horteena maalin walba lagu aflagaaday nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waa arin khadiir ah oo xun oo ma aragtay aad u dhibaato badan sababta oo ah waxayna tijaabinaa heer maxaa noo dambeeyo haddii diinteenni laga bilaabay oo diinteenni ayba noo dhowrnayn war ma sharafkaagaa kuu dhowrmi doono waa maya war ma nasabkaagaa kuu dhowrmi doono waa maya war ma maalkaagaa kuu dhowrmi doono waa maya war waxaad samaysaan ka istaaga meesho ka dhiidhiya war rag ma lahan oo haween ma lahan waa in loo wada istaagaa khaasatan haweenkii aawe iyaga laftoodooda waxaa lagu ogaa inay ma aragtay si aad uga hadlaan oo ka dhiidhiyaan war maa ka kacdaan meesha war maa fadhiga ka istaagtaan war nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam qof walba intuu awoodo muu ku difaaco waatuu nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam sacd ibn abi waqaas dagaalkii uxud markuu difaacay uu lahaa fidaaka abi wa ummi irmi yaa sacad aabahay iyo hooyadii lagugu furay fallaartii soo dhacdu isaga isu dhigay war haddaan shalay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu noolay aan difaaci lahayn war hadda sharafkiisa maan difaacno war hadda maan ma aragtay ka hadalno walaalayaal waxaa loo baahan yahay qof walba intii uu awoodo inuu ka hadlo qof walba intii uu awoodo inuu difaaco kii awood gacan u leh kii afka u leh kii ma aragtay habaari kara kii ma aragtay wax sheegi kara kii dadka baraarujin kara nin walbow intaad awoodo diintaada iyo rasuulkaaga maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo kitaabkaada iyo islaamnimadaada difaaco insha allah halkan waxaan rabaa xoogaa buraanbur ah oo aan uga diyaariyay difaaca nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inaan ka tiriyo waana kan ila dhageysta سبحانه نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على نبينا محمد إسلام كسر يا إيونو دينتا نو صديقي إسلام كسر يا إيو دينتا نو صديقي صحيح قرآن كإيونو لا يميت سماها سنها إيا فرل كإيو خير كنو سليمي صراط المستقيم كإيو نولا يميت سهديغا سما هرير النار تإيو نوغا ديغا سينادا سبع سماوات سبانه لغا أيدي سبع سماوات سبانه لغا أيدي سنجيغا دالدكي سوياهاي سو عرير عدنان صفاها خلقي سباني آدم لما سنين سورة قروح دي سباني آدم لما سنين صفاها خلقي سربي غي كدي غي صحيح سبحانه ونبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على نبينا محمد sidee gaalsayn la sumcaadiisa ugu dhacaa sidee gaalsayn la suuraadiisa ugu dhacaa suyuuftii islaamka iyo away sarakicii sufuuftii khaalid iyo meeya salaaxudiin salafka wadadu mariyo away siiradii saxiixaankiyo axaadiistii wada sugneed samcan wadaacaya maxaa sawdka looga dhigay samcan wadaacaya maxaa sawdka looga dhigay sifeeya sahyuunigiyo gaalka saancadka sifeeya sahyuunigiyo gaalka saancadka silibkaya maca tablehay seerahooda guba salow ku rida gaaladoo yaanay sama kuladiin salow ku rida gaaladoo yaanay sama kuladiin haddaba walaalayaal buraanburkii halkaas ayuu ku egyahay waxaan rajaynayaa dad badan oo muslimiin ah oo i dhagaysan doonta insha allah oo i maqlaysa insha allah i maqli doontana inuu gaaro codkayga iyo codad badan oo dad muslimiin ah walaalayaal waa inaynu difaacnaa diinteenna waa inaynu difaacnaa islaamka waa inaynu difaacnaa nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam ilaahay nagu karaameeyey ilaahay nagu sharfay
khalqigan uu ilaahay sharaf ugu yeelay uu u soo dhiibay diinta allah subxaanahu wa tacaala uu doortay waa inaanu garab istaagnaa waa inay halkii ay mareen dadkii wanaagsanaa ee asaga diinteena darteed u dhintay ee nebiga difaaciisa u dhintay ee loo dilay inaynu halkaa marnaan waad garanaysaan diintan wixii loo soo maray aala yaasir waatuu nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam uu lahaa isbiruu aala yaasir fa ina mawcidukum aljanna sumaya camaar ibnu yaasir hooyadiis waad ogtihiin waxaa loo dilay ilaahay dartiisa loo diliyay diintan iyo nebi maxamed inay raacday sallallahu calayhi wasalam yaasir asagana sidii loo tacdiibinayo oo loo cadaaba ayuu cadaabka ku dhintay maxaa anaga noo diidan in aynu difaacno oon garab istaagno nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam cirdigiisa iyo sharafkiisa aan ma aragtay difaacna maxaa noo diidan wax kaloo noo diidan ma leh waa adduunye jacayl waa nafsad jacayl wax kaleeta nooma diidano marka walaalayaal aakhiradeenna iyo adduunyadeenna allaha noo hagaajiyo waxaana idin leeyahay dadka muslimiinta meelaad joogtaanba ku baraarugo xaqana ku dhinta xaqana ku noolaada والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.